دولة الصومالية waxay aad iyo aad iskugu hawlaysaa talaabooyinkii ugu horeeyana qaaday in la soo afjaro in abaari dadka layso abaar maxay tahay roob baadii way 6 bilood xoolihii baa wax cunaan waayeen biyihiina way dhamaadeen intaasoo roob da'aya intaasoo biyo badda ku daraya inaan inagu wax ka qabanaa way tahay dawladda iyo dadka oo wada socdayna wax ka qabtaan ayay tahay ya maalin dhaweed Kismaayaan tagay waxaan arkay meesha waxa biyo maraya ee badda tagay ilaa xagga sare marka tagtana dadku way oomayeen shaqa inaga inoo taala weeyaan waa shaqa inaga inoo taala inaan webiga aan habayno oo aan dib u celino dhulka abaarto dhageyno wadanka dhan saa ugu wareejino ay adduunyada samaysaa taasi inaan samayno wax inaga inoo yaalo weeyaan inta inaan samaynina cidna eersan mayna inaga ilaahay dareegeena ina dhigo imikii haatana dhibaato jirta abaar baa jirta dad baa biyala taasi waa waqti kale aynu ka hadli doonaa waxaan markaa go'aansanay waxa weeye in dadka gurmad degdeg la gaarsiiyo oo ay imika ugu adag tahay gedo sida warkaan ku hayno gedo ugu adag tahay qaar kale ku daba jiraan ay jiraan inagoo taas sameeynayna inaynu haddana ka gaashaamano duufaanada qaadi doona dadkii biyaha iman doona haddana rogi doona soo socda bisha soo socota sidii caadadu u baahay iyadana inaan ka sii gaashaamano si aad ogtihiin deen cafiskii waxa ku xigay in deeqaha dalkan loo furo mashaariicdu waqti bay qaataan si aad ogtihiin mashruuc maanta aad furtay oo waxa laga qabanayo fatahaadaha oo iska jira haddana waqti buu qaataayo inta finance-kiisa la eegayo inta cid qadaraska la siinayo waqti bay qaadanayaan laakiin mashaariicdaasi waa mashaariic maanta yaala oo la doonayo dhawaan inay fal galaan oo hir galaan oo inaga filaadaan ya inta uu soo fato dadka laayo inaga filaadaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aan gacmaha is qabsano ta hore xagga jirtana gacmaha isku qabsano long term-ka ta kale maanta taagano of course gacanta iska qabsano dawladdu diyaar bay u tahay marka waan dheeriyay hadalkan soo gaabiyo raali hada wasiiro aan gacmaha iska qabsano sidii aan dadka maanta dhibaatada haysano ugu wada gurman lahayn anaguna afkaan gacanta gelina waxaan haynana waan soo dhigaynaa international community-gana waan la hadlaynaa marka insha Allah tacaala waan ku soo noqon doonaa ilaahay masiibooyinka hayna garab mariyo coronavirus-ka Allah inaga daweeyo waxaan qaban karnaa qabanno. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.